السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وهذه السلام أصحابي سيدين نصونا مدكع يعني ونصونا مدكعي الحمد لله. وحان فديا ميل aan ballan ku lahaa saakayto ballantii aan wiila gaarin aan imid waxaan ku nasanayay meeshaan aad u jeedaan biyaha ka burburaya biyahaasi maahan biyo oo tuba ah waa biyo meesha lagu shubay meel yar hoosena waa ka soo galaan korna waa ka soo baxay waxay rabaan inay noo been guuraan oo ay ka dhigaan biyo tuba ka socdo oo wax lagu soo shubay meel hoosena waa galayaan korna waa ka soo daynayaan meeshaan waa dukaamo agtood ogaa meesha in markii lagu nastaa loogu talagalo dadku iska fariistaan markii hadaad soo daashay hadaad rabtay inaad iska sheekaysatid oo dhowr qofood tihiin meeshaan waa meel loogu talagalay sidaas wax lacagana maaha wax lacagana lagaa qaadan maayo markaan meeshaan hadda aan soo fariistay waxaa qalbiga ku soo dhacay waddankeeni inaan wadamadan ka ciid fiicannahay inaan ka cimilo wanaagsannahay haddana waxaana burburiyey oo waddankeygii quruxda u diiday inay tahay nabad darrada nabad la-aanta nolol annagaa ka badin lahayn waddankan maanta haddii nabadeedii hore aan haysan lahayn laakiin wax noo qadaraa weeye oo maaragtay kolley ilaahay xaggiis ka soo ahaatay laakiin hadda iyo dan see nabad lagu dhalin karaa weeye nabad waxaa lagu dhali karaa 3 meel 4 meel 5 meel yaan lagu kala xiraanin in la isgarto oo danta guud laga wada shaqeeyo haddii aan danta guud laga wada shaqeynin walla inaan la gaari karin nabad inaan la gaari karin iyo nolol nabad iyo nolol qolada isku sheegtay oo nabad iyo nolol la baxday waxaa la rabaa nabad iyo nolosha inay ka soo miro dhaliso oo nabad iyo nolosha ay sheegta keento haddii ay keeni weysana inay hadda nabad iyo nolol magaca ah magac waxaa matalaya sidii magac loola baxo waxaa la rabaa in magaca laga rumeeyo qofaan danta guud ka hormarinna waddankan nabad kama dhali karo ilaahay baa ka dhali kara laakiin qof ilaahay kaashado oo ilaahay isku xira oo dad walba oo aqoon yahana iyo oday iyo indheer garadba wax weydiiya oo la tashada dadka ilmaha yar 10 jirka ay tali ku leeyahay islaanta weynoo 8 jirka ama 9 jirka ahaatay intayba maskax leedahay taladeeda waa in la qaato odaygu waa sidoo kale dhalinyaradu waa sidoo kale aqoonyahanka waa sidoo kale dhammaantood waa sidoo kale u jeedin waddankan quruxdiisa nagama waddan fiican annaga ka waddan fiican annaga ka geedo fiican wax walba annaga ka fiican laakiin wixoodu way fiicnaysteen ayagaa fiicnaystay annaga maxaa noo diiday marka inaan fiicnaysano gobol iyo degmo iyo magaalo madax intaba waa inaan annagu inta dadka jooga waa inay ka shaqeeyaan quruxdeeda iyo nabadeeda iyo nolosheeda marka waxaan dhihi lahaa kaatashada cadaawo isku tiirsanaada haddaynaanu kala harin tabar yeelan maaye kaatashada cadaawo isku tiirsanaada kaatashada cadaawo isku tiirsanaada waxaan nahay dad xul ah waxaan nahay dad noloshoodu wanaagsan tahay qalbigooduna fiican yahay laakiin qalbigeenna waxaa kala dilay shacabkeenna waxaa kala dilay siyaasi iyo nin dangaaro leh iyo nin cadow adeegaya war kuwa cadowgu u adeegayo ilaahay ka cabsada war cadowgu ha u adeeginina war caloosh shaqaystaha noqonina war waa ujeedaa wadamada kale siday u dhisan yihiin iyo siday u qurux badan yihiin iyo siday noloshoodu u wanaagsan tahay aniga hadda weligay arrimahan kama aanan hadlin laakiin markii aan meeshaan soo fariistay oon biyahaas iyo meeshaan iyo aan hooskaan arkay oon eegay ayaan meel waddankayga intaas ku nasan kartid ma laha qalbigayga ku soo dhacday oo sidaan aad isteganaashaha jawiga ugu nasan kartid war maa samaysatiin ilaahay baa idin faxani
ما samaysataan oo heshiis ku baaqdaan oo dhinac walba la heshiisaan nabad iyo nolol magaca ah waxaan u malaynaa beenbeen oo la baxdeen baaba beenbeen waa u jeednaa inuu beenbeen yahay laba dadka in la isugu dhajiyaa bad keenteen ilaahay naga kii qabto intii dhibka wada oo aan danta guud ka shaqaynaynin ilaahay naga qabto intii ka shaqaynaysa danta guudna ilaahay ayaa kor ka dhigo ilaahay wayna waaxid haayaa og qof walba qalbigiisa annagu kuma jirno waan ku dambaabayna haddaan dadka qalbiyadooda aan wax ka sheegno iyo waxa calooshooda ku jira laakiin qof walba ficilkiisa loo jeedaa marka nabad iyo nolol ilaahay xaggiisaan ka rajaynaynaa qolada nabad iyo nolol la baxday magaca ka rumeeya haddii kale iska dhaafa magaca iska tirtira oysan ahayn ka rumeeya oysan ahayn dadka hoos u eega marasta hoos u eega maatida hoos u eega shacabkaad ku timaadeen meesha shacabka talada wax ka siiya ilmaha 8 jirka fikir ku soo dhaca waa inaad ka arursataa maamada anoo kala mid waxa ku soo dhaca waa inaad ka arursataa wiilka dhalinyarada waxa ku soo dhaca waa inaad ka arursataa dhalinyaradu waxay u ooman yihiin annaga waaweyn waxaan ba aragnaybo anigii intii iga weyn waxaan ba aragnayba nabadda Soomaaliya aragnay ama gobol ka jirto ama degmaha ka jirto ama magaalo madaxda ka jirto laakiin ilmaha yaryar waxay u ooman yihiin dhalinyarada inta 40 jirka inay 40 jir ilaa 40 jir inta ku sinan ama ka hooseyso waxay u bukaan nabadii inay helaan ay arkaanba Soomaaliya oo nabad hoos sidaan oo kala sidaan ay si ka qorxoon yahay jirto yaa ka dhiga kara hadda annaga ka dhiga karnee aawo yaabu ogolbo qof u ogol ma jiro qolo walba kan geedka ku jira iyo kan hawdka jooga iyo kan jooga magaalada madaxda iyo kan gaari gacanka wata kulli waxaa rabaa qof walba meeshiisa in loogu tago qofkii dhib qaba dhibka uu tirsanaa laga tiraa la rabaa dhibka ilaahay baa wax ka tiri kara laakiin inaad adigu qof jecel inuu walaalkiis garabkiisa soo istaago haddaad ahaato oo shiiq oo shaab oo wax kastaba leh kuwa geedaha ku jira xataa ku soo raacayaan mahaantii way ku soo raacayaan nabad iyo nololna waa laydinka naawilay nabad markii laydin doortay hore laydinkagama soo boodin waa ogeydeen laakiin adinkaa waxba idinka dhaqaaqi waayeen sidaan aaminsanahay waqtigaas waa lagaa warsugay madaxweyne farmaajo waa lagaa warsugay laakiin adigaa baahay adigaa hawshii aad markii hore sheegtay oo lagaa sugayay adigaa ka bayray marka insha allah sidii laguu doortay niyahow waad u dooraanaysaa haddaad geedaha dad ku jira ka soo bixisid ood respecti siisid oo aad tiraahdo ayagana waa dad walaalahooda waxa ay dhibaatada u geysanayaan adigana meelaaba lagugu ilaalinaa kumaba arkaan marka adiga telefoon iyo wax kastaa jiro nin tanaasula noqo niyahow ilaahay idinkiisna khayran ka rajaynaynaa inaan kusii dheeraadan ma rabin intaa yartaa qalbiga ka soo maaxatay markaa meeshaan fariistay walaalahayga khaaliga siyaasad inaan ka hadlana maana rabin laakiin khaaliga ahaaba insha allah iga ahaaba raalli ma aanan siyaasadna inaan ka hadla ma rabin aniga banahaygana ma ahayn laakiin meeshaan markaan arkay ayaa qalbiga wax ka soo maaxdeen meeshaan markaan arkay bal meesha inta la agtaa waa meel sirtaa laamiga day dhagaxdaas taaltaalo hase ahaatee sidaasay ka dhigtay guriga darbiga geedka wax dhan waa geedo meesha dhan waa geedo markaasa meesha dhan waa geed haye marka insha allah waxaan rajaynayaa waddankaygu inuu saasi si ka fiican noqdo waan soo geedinaha annaga dhan laakiin xaggee usoo geedi ahaan lahayn waxaan usoo geedi ahaan lahayn waaba tanaaba maalin ilaahay keena qaraxaaba ka taaganba ilaahu rabbi oo noo yas ilaahu naga badbaadi ha u malaynina inaan maaragtay wax kale ha ii fahminina ha u malaynina inaan waddankan ammaanayo ma ammaanayo laakiin dadka waxaan qalbiga kusoo maaxatay in aan dadkaan oo kale nahay oo aan noqono dadkan si waddankooda wareegtay annagana maxaa noo diiday weeye sida aan maaragtay hadalkaa u sheegay ma ahan yacni inaan waddankan ma faaninayo aniga quruxdiisana ma idin tusaynin laakiin waxaa igu soo maaxatay nabadda waddankan ka jirta iyo waddankeena 30 sano nabad la'aanta yahay wax kaloo aniga aan ka waday ma laha arrinkaas mana jeclay inaan ka hadlo siyaasadda iyo afaarahaas laakiin qalbigaa wixii ku soo dhaca waa inaad la wadaagtaa bulshada
oo aad qalbiga ku hayn kari weysay waa inaad bulshada la wadaagtaa sidaas ayaan la wadaagay khaaliyaashayda kilibkan qofkii fiirsada ha sii gudbiyo oo ha share gareeyo oo ha gaarsiiyo inta kalena insha Allah ilaa iyo dadka aan maanta ilaa iyo madaxda sare inuu gaaraan jeclaa warkaas oo ay maanta ka fikrad qaataan sii share gareeyo like nadaha qofkii uu soo gaaro waa idinkaas commentiguna waa idinka laakiin waxaan kala dardaarmaa inaad sii gaarsiisaan dadyo badan inaad sii gaarsiisaan insha Allah